السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبد iyo warsan waa mar kale iyo mareegta horseed. Eegan waxaan kulaali doonaa magac bixinta ummadda Soomaaliyeed hadii ay bayiraahdo. In marka ugu horeysa ummadda Soomaaliyeed marka ay magac bixinayso oo qof yar oo dhashay oo dhalaana loo magac bixinayo ama loo wanqalayo waxa loogu wanqali jiray inta badan xilliga uu dhashay oo kale sida uu dhashay oo kale marka waxa looga magac bixin jiray xaaladii uu ku dhashay iyo habka uu dhashay iyo goorta uu dhasho kale waxyaabo noocaas looga magac bixin jiray. Haddaba magacyada ugu badan ee ummadda Soomaaliyeed haddana aad moodid in isir kaasi uu ka sii dabar go'ayo ummadda Soomaaliyeed adeegsigiisu. magacyada ugu badan ee la adeegsadana yihiin magacyo Carbeed oo soo galootiya talabaad ee imika dhibaatada ugu weyn hadda ka sii darana ayba tahay in magacyo kale oo soo galootiya oo ajaanib ah oo luqado kale inaga yimi ay hadda ummadda Soomaaliyeed carruurtii loogu wanqalayo oo loo bixinayo aan la garanayna meel allaale meel ay ku saleeyihiin iyo magacoodu macnaha uu taagan yahay. waxaanu furfuri doonaa magacyo door ah oo ummadda Soomaaliyeed adeegsan jirtay waayo badan. magacyadan laga yaabaa hadda adiga oo dhageysta ah oo imaqlaaya in aabaha awowga adeerada cidun la yiraahdo. magacyadan oo ilaa firkeeni hore ummaddu ay adeegsan jirtay bal aynu soo qaadno dhowr kamid ah. in magaca ugu horeeya aynu soo qaadan doonaa waa magac dumar waana magaca Cadar. magacaasi Cadar kulay qof dad badan oo dhalinyarta maanta joogta hadii ay magacaasi maqlaan waxay soo qaadan doonaan Cadarka la isku buufiyo waxyaabahaasi fikirkooda ku soo dhici doona. laakiin markaanu magacan dul istaagayno waxa jira wax la yiraahdo Cadar Xagaayo. Cadar Xagaayo waxa la yiraahdaa waa xilliga xagaaga daruur yar oo caadaadaho mararka qaarna daada oo cirka qabsata waliba xilli barqeedka taasoo cirka qurux ka dhigta. markaas inta qurux iyo iyadoo lagu mataalayo ayaa magacan loo adeegsadaa. magaca labaad ee soo qaadan doonaa waa magaca Hurre waa magac nin. magaca Hurre hadii aynu eegno inta badan waxa loogu bixiyaa waa qof gaaban oo madow oo marka uu dhasho hadii qofka laga dareemo inuu noqonayo minjihiisa kala la yiraahdo qofkani waayada dambe wuxuu noqon doonaa qof aad u madow gaaban ah. waxa loo bixiyaa magacan waliba inta badan magacani xilliyo dambe ayuu baxaa oo kaliya buu istaagaa magac kale kuma laadmo. magaca aynu soo qaadan doono ee kale waa Cawo iyo magaca Ayaan. labadan magac erey ahaan waxay u taagan yihiin af Soomaaligeena nasiib. qof nasiib wacan ama iyadoo xaalad ka kan oo kale laga yaabo inay jirtay qofkaasi si fudud uu ku dhasho oo kale waxyaabo badan oo saaciday oo kale qof nasiibkiisu iyo ayaankiisu aad u sareeyo ayaa la yiraahdaa Cawo ama Ayaan la yiraahdaa. magaca kale ee Cuti waa magac inta badan ku soo dhow Dhiiriye, Gaambiye iyo Gaariye. magacyadaasi ku soo dhow magacan waa kii Gaariye lahaa Cutiyaan yiraahdaa. inta socodka culus ayaa inta badan magacan loo bixiyaa. waxaan soo qaadan doonaa oo kale erayada magac kale oo la yiraahdo Haybe. magaca Haybe laftiisu waxa loo bixiyaa ninka madowga dakhilka ah ayaa inta badan la yiraahdaa Haybe. sidoo kale magaca madowga dadka loo adeegsado waxa kamid ah Meegaag oo kale. noloshooda horta magacaasi wax yar baaban maqlay dad la yiraahdo waxa jira oo kale geedka Meegaag ah baa geed madow tan sida awadeed ayaa iyadoo geedka lagu masaalayo madow loo qarinayo loo bixiyaa. sidoo kale waxa jira magac dumarka loo bixiyo Chinow la yiraahdo. inta badan laga yaabaa in ay ayooyinka la yiraahdo
oo aniga dhowr qof aban garanaya la yiraahdaa. Jinow waxay iyadoo lafteedu ka masaalaysaa geedka jinow dhanaanka la yiraahdo. waa geed midho yar oo madow oo la cuno leh. qofka madowga markaasi looga shakisan yahay ayaa loo bixiyaa inta badan. waxa soo raaca magac kale oo ragga loo bixiyo oo la yiraahdo quule. magaca quule laftiisu waa geedka quulaha midhaha geedka jeerinka la yiraahdo ka baxa ee quulaha dabagaaluhu inta badan cuno ayaa iyaguna midho yar oo madow. midhahaas iyadoo oo loo tusaaleynayo macnaha qofkaasi la leeyahay madowgiisa si loogu tusaaleeyo ayaa inta badan loo bixiyaa. waxaanu kaloo soo raacin doonaa magacyadaasi. meecaad waa magac inta badan sida guri barwaaqo uu sheegay abwaankan xarunta dhaqanka Hargeysa. waa roob ka da'a Hargeysa iyo wixii galbeedka xiga. qofka markuu dhasho fool xun laakiin hase yeeshee marka uu koro ee uu wacnaado uu weynaado loo filayo inuu qurux badan doono ayaa la yiraahdaa meecaad. waxaan filayaa meecaad miigani inaad wax badan riwaayadihiisa aad u daawateen oo garanaysaan. waxaanu ku xigsiin doonaa magaca gaaxnuug. dhowr jeer laga yaabaa inaad maqashay ama aanad maqlin. magaca gaaxnuug waxaa loo bixiyaa ilmaha caruur iyadoo ka horeysay ay dhimatay ama curad ku xigeenkii oo kale oo curadkii dhintay ayaa isagoo ilmihii ka horeeyay aanu naaska jiqin ayuu geeriyooday. deetana ilmahan dambe dhashay ayaa waxaa la yiraahdaa gaaxnuug. waayo gaaxdu waa caanaha markay ku dararaan naaska ee wax badan ay ku jiraan. waayahay waxa xiga oo ku soo dari doonaa dhiig. waxa la wada garanayaa abwaan dhiig magacan waxa loo bixiyaa ilmaha aabihii inta badan oo yakaada. sababtoo ah waxa dhiig ereygan waa wax laga soo dheegay ee lagu bixiyaa oo ereygu sidaas ku yimaada. taas markaynu ka tagno waxaanu tagi doonaa magac kale oo la yiraahdo cabban. magacan cabban waxa uu sheegayaa ama cabbane labadaba ha noqotee waxa uu sheegayaa nuglaanshiyo. qofka inta badan nugul ama aan adkaysiga badan lahayn ayaa la yiraahdaa cabban ama cabbane. inta markaynu ka nimaado waxaanu imanaynaa magac kale oo la yiraahdo dacar. hebel dacar weyn wax badan baan maqalay. dacar laftiisu muxuu ku yimaadaa? magacan dacar marka ugu horeysa waxa la yiraahdaa dacarta geedka la yiraahdo buu ka yimaadaa. magacan geedkan dacarta la yiraahdaa laba sifo leeyahay oo kala duwan oo aad iyo aadna u kala fog. marka ugu horeysa geedku dheecaan ahaan waa geed marka caleentiisa aad jabisid qadhaar oo kaneecada inta badan laga qaniino warabtiisa yar ee cusub. mar labaadka geedkaasi wuxuu bixiyaa xilliga barwaaqeedka oo waliba haddadan aynu xilgan aan barnaamijka duubayo oo xagaaya oo dhirta dacarta hadaad soo eegtid ay leedahay. muuqaalkiisana aaban idinku soo daray halkan idin soo dhigi doonaad geedka ka arki doontaan dhabaqa. wuxuu bixiyaa wax yar oo baaldacar la yiraahdo. laamo yar oo dhuudhuuban oo baaldacar la yiraahdo. laamahaasi waxay bixiyaan ubaxa yar baa wuxuu bixiyaa dhabaq yar oo inta badan shinnida iyo waxaas ka qaadato. dhabaqa marka dhadhamisid wuxuu dhadhamayaa sida sonkorta ama malabka oo kale ay la dhadhan yahay. taa aawadeed qofka laba sifo oo kala gedisan looga shakisan yahay inuu ama dhaqankiisu laba dhaqan yeelan doona ayaa inta badan dacar loo bixiyaa. waakii lahaa abwaan qaasim allaha u naxariistee waxaan ahay macaaniya qadhaar meel ku wadayaale. dacartuma marbay malab dhashaad muudsataa dhabaqa waa kila. markaynu intaa ka nimaadno waxaynu ku xigsiin doonaa magaca la yiraahdo hayaan iyo magac kale oo sida uu abwaan guri barwaaqo uu sheegayo la mid ah oo la yiraahdo qayaad. labadan magac sidaad ka dhadhansan kartid mid waa mid rag oo inta badan hayaan ragga loo bixiyaa. qayaadna waxaan filayaa
inta ma arag horta cid la yiraahdo laakiin magacan ummad Soomaaliyeed oo in badan dad badan oo sheegaya waan arkay sidaa darteed ban u raadiyay xogtiisa marka magacan laftiisu wuxuu la mid yahay magaca hayaan qofka xilli reer guuraagii bay ummadda Soomaaliyeed ahaan jirtay intee xilli reerku geed yahay oo kale oo hayaan lagu jiro dhasha ee inta badan loo bixiya marka waxaanu ku soo gunaanadi doonaa oo aynu ku soo gabagabayn doonaa magaca la yiraahdo sooraan Allah u naxariistay abwaankeeni jilaagi caanka ahaa Allah u naxariistay dhawaan dhintayba wala wada yaqaan sooraan magacan guri barwaaqo sida uu leeyahay magacan laba ujeeda ayuu yeeshaa inta badan labada ujeeda anigu mid baan hore waaqana midna isaga ay kordhiyay Allah ha hadayo labada ujeedu leeyahay mid waxa weeye horta marka hore ooda reerka lagu soo maageero ee lagu soo oodo ayaa la yiraahdaa sooraanta markaas waxa uu leeyahay marka hooyadu ay dhasho gabdho badan iyadoo gabdho badan ay dhashay deetana ay isleedahay dhamaantood laga wada guursan doonaa deetana aanay cidba kuma soo hadho inta badan marka hooyooyinka laga dumar ay hablaheeda laga wada guursado oo deena walba reerka guursaday bay aada marka uu wiil ugu dambeeyo ee wiil marka u dambaysa u dhasho ayaa waxa la yiraahdaa ay markaas inuu deer u noqday oo ay uu soo deeray awadeed u bixisa marka labaad magacan waxa uu ka soo jeedaa ereyga soortuna mar waa fal marna waa magac oo la wada garanaya taas imika ku dheeraan maayo erey bixinteeda marka mar waa soorti marna waa soorahii oo qofkii wax sooray magacan marka waxa loogu bixiyaa inta badan marka hooyo ay dhashay laba hablood iyo wiil oo kale ee deetana wiil kale ku soo biiro wiilkaasi wuxuu kala qaybiyay hablihii iyo inamadiiba laba u kala qaybiyo laba hablood iyo laba wiilba ka kala dhigo kale markaas ee wiilka afraad ee dhashay ay hooyadu u bixisaa sooraan sidaas ayuu isna ku yimaadaa inta badan halkaas aynu kaga bixi doonaa magacyada inta kooban maanta maadaama aan doonayno inuu barnaamijkeena ila dheeraado insha Allah barnaamijka xiga ee magacyada oo sidana ka qurux badan insha Allah haduu eeba yiraahdo aynu soo go'man doonaa waana sii badin doonaa magacyada aad u baahataana ee aydin fahmi weydeen macnahoodana